Maalinta Axadda ah ee 26-ka bisha Sebteembar ayaa si rasmi ah loogu dareerayaa doorashada baarlamaanka Jarmalka, inkastoo toddobaadyadii tagay ay dadku codadkooda ku dhiibanayeen nidaamka warqadaha boostada lagu dirayo. Nidaamka codeynta ee boostada waa nidaam u sahlaya dadka aan safafka geli karin iyo kuwa waqtiga aan u saamaxayn inay ka qayb noqdaan nidaamka dimuqraadiyadda ee dalkan. Markii ugu horreysay waxaa tartanka ka qayb galaysa Nuuxa Shariif Cali oo ah gabar Soomaaliyeed oo rajeynaysa inay baarlamaanka federaalka ee Jarmalka ku matasho degmada Fulda ee bariga gobolka Hessen. Haddaba waa tuma Nuuxa. Nuuxa Shariif Cali waa siyaasi 29 jir Soomaali Jarmal ah. Waxay iyada oo yar qoyskeeda ay qaxooti ahaan ku yimaadeen Jarmalka kadib markii ay kasoo tageen Soomaaliya oo ay ku dhasheen. Bilowgii noloshooda Jarmalka waxay qoyskeeda ku qaateen magaalada Neuhof oo ay markii dambe uga guureen magaalada Fulda. Waa xildhibaanad golaha deegaanka ee Fulda ka tirsan, ahna hogaamiyaha kudlada xildhibaanada xisbiga ay ka tirsan tahay ee Die Linke ama bidixda. Sidoo kale waxay ka shaqaysaa jaamacadda Fulda oo ay ka tahay isku duwaha waxbarashada ee ardayda caalamiga ah. Waxay aad ugu ololeysaa sinnaanta, cadaaladda iyo arrimaha qaxootiga, muhaajiriinta iyo in dadka laga tirada badan yahay ay xuquuqdooda helaan. Waa macallimad luqadda iyo isdhexgalka qaxootiga ka shaqaysa, si gaar ahna haweenka qaxootiga ah. Maadaama iyada iyo qoyskeeda ay qaxooti ahaan ku yimaadeen, si gaar ah ayay dareen gooni ah ugu haysaa arrimaha qaxootiga. Nuuxa walaasheed Khuluud Shariif Cali ayaa sidoo kale ah qof aad u firfircoon. Waxay waxbarashada ka gaartay heerka doctorate. Waxay ka howlgashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka, si gaar ah waxay howlo ka soo qabatay ergada qaramada midoobay ee Jarmalka iyo safaaradda Jarmalka ee dalka India, taas oo muujinaysa inay ka soo jeedo qoys guuleystay ama firfircoon. Marka aad fiiriso howlaha kala duwan ee ay qabato Nuuxa, waa qof firfircoon, waxaase hor yaalla hadda howl adag oo ay u galayso kursi aan sahlanayn ku guuleysigiisa. Yay kursiga kula tartamaysaa? Kursiga ay ordayso ee baarlamaanka federaalka Jarmalka waxaa ku fadhiya siyaasi rugcadda ah oo ka tirsan xisbiga Angela Merkel ee CDU. Waxaana lagu magacaabaa Michael Brand. Michael wuxuu ilaa iyo sanadkii 2005 ka tirsanaa baarlamaanka Jarmalka. 4 jeer oo uu kursiga u tartamay waa uu ku guuleystay, taas oo muujinaysa in xisbigiisa ay ku xoogan yihiin magaalada Fulda. Xisbiga CDU ayaa laga cabsi qabaa inay kuraas ku waayaan doorashada sanadkan, maadaama hogaamiyaha xisbiga muddada dheer soo maamuleysay ama hogaaminaysay Angela Merkel ay ka fariisatay siyaasadda. Haddii ay taas dhacdo, waxa ay fursad u noqon kartaa xisbiyada kale oo iyaguna ku loolamaya kuraas kale inay baarlamaanka ku kororsadaan. Haddaba fursad noocee ah ayay Nuuxa haysataa? Fursadda Nuuxa waxa ay ku xiran tahay sida uu u guuleysto ololaha xisbigeeda bidixda ee doorashada magaalada Fulda iyo siyaasadooda guud ee dalka Jarmalka. Kahor inta aanu fursadaha horyaalla ka hadlin, aan bal dib ugu noqonno doorashadii 2017 ee baarlamaanka. Xisbiga bidixda doorashadii 2017 wuxuu helay ku dhawaad 5% codadkii codbixiyayaasha. Xisbiga Michael wuxuu doorashadaas ku guuleystay ku dhawaad 45% codadka. Sidoo kale waxaa doorashadaasi kaga horreeyay xisbiga SPD iyo Grüne ama cagaarka, oo ay hadda tahay inay xisbigeeda dhaafo si ay Nuuxa u saldhigato Berlin una noqoto gabadhii ugu horreysay ee Islaam ah, xijaaban, islamarkaana qaxooti ah ee baarlamaanka Jarmalka ka mid noqota. Marka la fiiriyo dadka magaalada degan, Nuuxa waxaa horyaalla fursad. Fulda waa magaalo ay degan yihiin ku dhawaad 70,000 oo qof, oo in badan oo ka mid ah ay yihiin asal ahaan ajaanib, gaar ahaan dadka labada dhalasho haysta. Tiro badan oo magaalada degan asalkooda waa Turki, taas oo fursad u siin karta inay codad ku hesho aragtideeda ku dhisan sinnaanta, cadaaladda, la dagaalanka midab sooca iyo u ololeynta arrimaha bulshada. Haddii Nuuxa ay ku guuleysato kursiga ay u tartamayso, waxay taariikh u noqon doontaa dadka Afrikaanka ah, dadka Muslimiinta ah, dadka laga tirada badan yahay iyo si gaar ah Soomaalida.